السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقيارت الصوت هذا وعن سجى ولا شيء فاطمة علي إذا مكلا برنامج كعيدا قلق قاعدنا يسمى فانتين. It's a late and night 11 o'clock إنه تاي أرين يران أصو قال ما شاء الله والصومالي محمد هرت مقال مجرى ما اسمه قلويا. السلام عليكم كل يوم وسلامتنا أقيارته مقال مجرى invite فاطمة على وقصين فات قرية باي معان. السلام عليكم. وعليكم. اوكي هاكسعه باكسعه أقيارته تمقل واجرا صوما فاطمة ومقلين كوي مقشين جعلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاashii فردوس السعيد واي dadka أقيارته حقيقي تقانين أمينا مقعيقة أورجينال واحدة فردوس السعيد كوكولو even though dadka hadda igu soo biir ما شاء الله فردوس جيم لاف إيه قانان وحالي داينا سعيد كوكولو مركا كل صلاة مسلم كان نقول سلامي أنا يرى ما شاء الله ومدني ومحل ملك استدوية دعفة كذا نوع شيء كفر حيان أي عاودناني ولا شيء فاطمة إن مدة وحويان إن كستان كم قناة فيسبوك لايف أنا صاقلين أرين بقوم مشغول سنين أنا يفاضمه يومدني ومحمد دد بدن وبدن وهو يدي كمية هو يدي اللي يقصد دعي وحلا محب الشيخ محمود وحكون وش هيسنديجو أرنتان أنا يهو يدي ولا شيء فاضمه كم صيحني إن وحن آدي وقلت للجنة ما مليون يقول كانوا ولا كانوا إن مدة أرين يرى يبدأ السعودي سانكون شيء سين لهن الحمد لله أبوه شيء سكوا قابلي مجلس وقرنيسين عبد الحكيم أنا فيرو ويوس كصدوه وما مليون وكرالي قلنا مركا الحمد لله أرنتاس إن مدة كشقين يعني أنا يفاضمي ومدني ومحمد بدن وبدن وفيرو جيس كل شيء ولي كمتها هو يدي وقفوين وحنوسنا كنا السنديجا مركا وعارف فرحت نوسو هو يتي ما تنو عبد الحكيم هو يدي مرنا أنا قنقرت ولا شيء مرنا إن أدرتيس مرنا دي دمرهان وجور جيو إنه رالي جلس يعفس ويديس وعارف وقول فرحه مركا فاطمة from there you take over honey. Thank you so much sweetie. horta marka hore waxaan ku jiraa meel mugdiya waa ka xumahay waxaan jeclaan lahaa kolle maasha Allah bareeqadeena inaan anigana wajigayga kala soo horjeesta laakiin de anoo shaqa aroorti lahaa marka anoo sariirta koray waxaa islahay berri waco berri hawshaa gala moogta laakiinse wallaahi wax la sugi kara ma waa arrin farxad leh absolutely waa ku faraxsanahay anoo xataa wajigayga la arkayn inaan ka qayb qaato arrintaas horta bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi alladii laa ilaaha illaa hu laa ilaaha ila allah xayu lqayuum rabbi shrax lii sadrii wayassir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qawlii horta marka ugu horeysa waxaan leeyahay ilaahay baa mahad iskale milu samaawaati wal ardi inti samaawaadka iyo arlada ay leeyihiin iyo inta ka badan ilaahay baa mahad iskale waxa weeye mahadaas ilaahay uu leeyahay waxaan amaanaynaa ilaahay oo ugu mahad celinaynaa asmaadiisa xusnada ah iyo sifaadkiisa culiyada ah ilaahaygii nagu guuleeyay arrintaas walaashay Firdowsa Saciid Coca-Cola oo maaragtay aad iyo aad ay murug ugu haysay arrintaas dadka qaar aniga dhex galo Firdowsa Jim Life bay garanayaan okay Firdowsa Jim Life na waa waxa waa magaceeda waxa waa stage magaceeda waaye laakiin magaceeda originalka waxa waa qoftaan magaca stage namekeeda oo maaragtay magaca lagu bartay maadaama ay tahay gabadha kaliya ee Soomaali maasha Allah tabaarakallah lagu dayan kara maanta oo exercise ku caan baxday ama personal trainer ka ah in Minnesota ama gobolka Minnesota dhanba ay tahay gabadha kaliya ee Soomaaliya xataa cadaan training garaysa macnaa gym life kaasi caan ku tahay waaba life keeda dhanaaba gym ah waa hadda inaan ku farq xirtaan rabaa insha Allah caaw laakiin taas mar kale idinka daba geyn doonaa marka ay resultiga ka soo bixi doona iyo laakiin caaw aniga waa farxsanahay sidii Firdowsa u farxsantahay anna u farxsanahay wallaahi caaw markuu intuu Cabdixakiin soo wacay yiri xafsooy wajiga ilaahay ayaan kaaga ballan qaaday hadalkaagii at 3:05 in the morning anoo salaad u socdo 3 habeen ma seexan ilaahay dartiis waxaan kaaga ballan qaaday inaan maamadaas
eedaday ah walaashay ah wax walba ii ah aan maanta laga bilaabo nabad ay iga hesho wallaahi waa ooye fardoos wallaahi ani waa iska kee taqaana mooshin ah waa iska qalbi jilicsana adiga adiga waa iga calool adagtaa moogtaa waa ooye oohinteydii aan wallaahi camirtu waxaan dhahay caawo habeen aan hurdada seexan kara waa wallaahi caawo markaasaa waxaa niyaddii ii degtay alxamdulilah because rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay dadku maanta waxaad arkaysaa laba qof fardowsay markay isqabato walaalay waraa loo kala geynaa dab iyo baasiinaa lagu shubaa balaayaa qof walba dhinaciisa ka afuufaa naar afuufkiyaa badan yaa wax sheegiyaa badan laakiin islaaxu bayna annaas in dadka la heshiisiiyo oo dadka wanaag la dhex dhigo ajarka ay leedahay dadku ma oga ajar aad u badan ay leedahay aniga waxaa laygu dhahay dadka ayay ku caynin dadkan kanka waxaan lagama yaaba hadday rabaan ha ay caayeen alxamdulilah waxaan aad ugu faraxsanay eedaday ilaahay waxaan ka baryay caafimaad degdeg ah oo aysan ka degdegin inuu ilaahay eeda siiyo fardowso hooyadeed oo xanuunsan wallaahi wuxuu dhahay cabdixakiin way igu ooysay wallaahi wuxuu dhahay maamadii xanuunsanayd hooyo haddaan eedadaa ahay waalidka haddaan ahay maamadan waa ehelkaayo ka leexo waa hooyadaayoo kale marka waxa waaye siduu isagiina maaragtay uu u qaatay wanaagayagii suu u qaatay oo hooyadaya warkeeda u maqlay oo fardowso oo uu yiri weliba iyada aad bay dhakada iga saartay mar aliya markay aragtaba aad bay dhakada iga turtay uu u qaatay anigoo aaban aqoon u lahayn fardowso waxaa laygu yiri wuu kusoo caynaya waxaan ku dhahaa isoo caayo hadduu isoo caayo hadalkan kaa dhexgala faadma waxa la cabdixakiin kale way daawan doonaa waxa agmaro dhan eeridiisa waxa tag waa lagu masawiraa ma ogtahay inta adreeskiisa raadiyaan gurigiisa muddo dhowr beri ka hor tagay shala ugu dambayso waan la hadlay waan waay ma fahantay waxaan taaganahay shur iyo shur waan ku imaanaya haddii wax lagu kaa masawir jilbahan qabsaday marka alxamdulilah horta qof niyad fiican waa maamulyuna hadalka idinka dhexgalay aad iyo aad qof u niyad fiican oo rixin waa iyada waan la hadlay qof gob ah weeyaan qofka wuxuu yaala sheegaa she have a golden heart she have a golden heart wallah she have a golden heart both they have golden heart أنا ما أتوقع إني كبر مزجرين كرا أسف فردوس أهم دي بدي آدم إلهي بحالة دي سوق وسقط قدين كرا لكن إنه عبد حكيم دين مليون مرنا ولا شنا إنه كلمة دم بوحون وسودهن ما مليون إن شاء الله كل فرنتين ويجارس عاون فيت كرا وصلها نديب دم بق ومسوا جواز استجنا بل الله هو يعني ولو نرجع واكن wax kasta lagu sameeyo ma sha Allah intuu jajabta hore u sii socdo dib dambe inuu ugu soo jawaabeen marna eediis marna walaashiisa marna inaadeertiis marka idin ilaahay uu naga yeelay saasuuna insha Allah uu hergeliyay isaga naftirkiisa ducaa in loo duceeyo waa qofka haduu intuu qalad sameeyo isgarto oo dulmiga ka soo laabto waxa waaye ma sha Allah waa ducuu naga mudan yahay ma fahantii meel aan ka hadlayo iyadana maamadu waa in loo duceeyo because iyadaba gef haduu ka dhacay inuu ilaahay dambi dhaaf siiyo labadooda inuu ilaahay dambi dhaaf kala siiyo marka mar dambe maama milyan iyo abo cabdi xakiin sheekadooda ma arkino you guys ma dhageysanaysiin haduu ilaahay yiraahdo muufigaas waa dhamaaday muufiga dadkaas ku raaxaysan jira dadka dacaadee the baa soo qornay aniga fardowsa soo qornay the wuu dhamaaday muufigaas iyo ubax cabdiraxmaan lama dad badan anaga kaliya ma ah ana way ku jirtaa ما شاء الله ما كلا هرنا رجع. وعربة فردوسو إنا كوجو درو. والله دكا أنا قد بريشن عادي بيقولوا دربان بيهارتك. فردوسو بينكم مش لقى عادي القرآن كاد بركان عن سين لقى يصير مسجكي. عادي القرآن كاب قلداب. والله يعني جا أصليا بكوس مركز دالنتها وعادي كان مسكح ذا أيته مسكح ذا يديها وحي نقطي. معنا وحي الشقيسي. موردن أنتي أي شقين لهيت كبضن بكوس. انت waxa ka fikiraa war xagee wax ka qabtaa what should I do wadadkan waa la isku dambaabacdaa la isugu socdaay waa dadkeeni waa Soomaali waa muslim war xoolo ma kala haystaan geel ma kala haystaan ari ma kala haystaan qiyaamiyaaba dhawe war dhawaaba la isrogi doonaaye maalinood baraf dhacay fardaas waxa islaama taqaana guriga ku soo carday waxaan dhaamay tan waa tii la isku halaagi lahaa waay marka wallahi baay adigana ilaahay khayr ha ku siiyo faadmo waxa islaam garanaysa arintan socoto foolxumada ma gabdhaha gurlaan ku dhacda mana soo dhignool yihiin
الله والله بالله محاتر كوعل هالكاس من الصالون وحفر حن مركل وقول شيء ما مروح على أنا ما قبلها يقول لا أكون على gabdhahana guur la-aan maxay ugu dhici ayadana lagu soo dhigaayo ma arkin miya adiga ilaa garawaana laga soo caaye صالون واحد حن because ضد بدنا قمنا ونظيف بكون وضد حن بدنا وما بدنا مقالة هذا في عتة bismillah minnesota 12 Firdawsi 12 sano la soo dhaafay Minnesota aan joogay marka meelaha tago waxay ku dhahaan tuulooyinka ma ka imaaday danahayga la ku quma aniga adigoo aan dadka kuugu jecel Firdawsi wali maal xataa islamayna qadan kafee meena wada qaadan adigana waxa ta hooyo mashquul aniga dad saasa joogo danahooda iyo life-kooda ku mashquulsan oo waxa waa in cidna dhibkooda iyo dad hadda khayr qaba waa la isku dhex jiraa meesha marka waxaan leeyahay abaaye aniga aan leeyahay horta alxamdulilaahi rabbil caalamiin xamdan kathiiran ilaahay baa mahad iskale ilaahayow rabbiyow raxmaanow intiina muslimiinta walaalayaalow oo ku jira 124 qof aa ku jirtiin fadlan waa idin baryaynaa maamada hooyo xanuunsan Firdawsi hooyadeed noogu soo duceeya inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad degdeg ah oo aysan ka degdegin malaa'igiisa alle ugu soo dhiibo qofta iyadoo xanuunsan nafteedii ka fikir weyse ee ka fikirtay dadka walaalaha ah ee Soomaaliyeed dhibaatada ka dhex taagan inay maanta ay islaaxiso walaalayaal waa idin baryaynaa qof walba muslimo ilaahay baa yaqaan qofka ducadiisa la aqbalaayo rasuulku wuxuu dhahay sallallahu alayhi wasallam ummadda 3 qof oo ummadda nabi maxamed ah hadday meel iskugu timaado qof baa ducadiisa la aqbalaa ama labo marka insha Allah oo kama qaala sallallahu alayhi wasallam marka walaalayaal u soo duceeya maamada u soo duceeya inuu ilaahay caafiyo iyada iyo intii muslimiin oo xanuunsan intii dhimatana ilaahay u naxariisto waalidiinta inta noolna ilaahay noo xifdiyo waxa aniga leeyahay walaashay Firdawsi hawl kama daalo wali waa hogadii hawlo badan baa inoo yaala insha Allah caawase waxa waaye horta ani caawa loo farxadoodaan qabaa maanta horta Women's Day Firdawsi saaka markaan shaqadii tagay anoo daalan oo ay iga caddahay oo ilaahay xaalkayga isku dhex walaaqan markaan daalo oo hurdada igu yaraatay ilmo yar camalina oo ay qabatay baad anoo shaqadii jooga hal ii waxa markaas shahaado sharaf jaag soo siiyay markaas inta qoslaa waxaan dhahay faaduma ma farxin miya faaduma saan dhahay maxaan ku farxaa meel kale iga shidanta baliyul cali waxay iga shidantahay ya Cabdixakiin Nuure aniga dhanaaba iska niyad xumaa wallahi inaana been ku sheeg faaduma maxaa kugu dhacay habi matiid waxaan dhaaseeyalna dadkan walaalaha muslimku isku gaaloobo isku dambaabo isku baaba'ay marka calaa kulli xaal ma sha Allah tabaarakallah wallahi abay waa ku faraxsanahay ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ilaahay naga dhigo tii aynu ku guuleysano oo wiilkaasi ballantii iyo dhaartii uu qaaday oo insha Allah uu sanooga bixin inoogana baxayo aniga waxaan ahay faaduma 142 dadku ku jiro ummadii nabi maxamed intii ku jirtana shargaree ayaa marqaati nooga tihiin hadduu Cabdixakiin nooga baxo dhaartu noo dhaartay inuu maamada dib kasta ay soo gaarsiisay even though ay soo gaarsiinna ogahay qof qoolay iyadana inay tahay hadduu maamadaas dib dambe u soo caayo rag iyo dumar idinka ku wada tufay hadduu ilaahay yiraahdo tookadan ma fahanteen waa ku goobanaynaa hadda walaalkii ah Cabdixakiin walaay aniga horta Cabdixakiin Firdawsi life uma aqaan weligay xataa wiilkaas hay ismaanan dihin laakiin waxaa jirta gabar oo aan kaasanahay de Saudi waa taqaanaa Firdawsi gabadhaas ayaa waxay yihiin friend wayna isla soo kornay dhahday gabadhaas waxay tiri ninkaan saa moodaysiin ma ahan waxaa jira walaalay dadka ilaahay qof basibu u abuuray waa qalbi fiican yahay dhahday wiilkaas xagga maarta qof dhibaataysan dhibka ugama tago hadda ani aqoon uma lii Firdawsi maanta dhihi karaa wax ku sheegi karaa laakiin walaalkay Cabdixakiin ma aqaani balse waxaan rajaynayaa maanta siduu nooga aqbalay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay jannadii ugu horeysay inuu ilaahay siiyo amiin ya wuxuu jecel yahay oo jannadii ugu horeysay inuu ilaahay siiyo sawjo khayr qabta Allah siiyo awlaad duusan haysan Allah siiyo wiilkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala madaxiisa raajiyo annaga uuna sharfay especially hooyo wuu sharfay dadkii uu magacyadooda tiriyay fiidiyowgiisa haddaad daawateen wuu sharfay Firdawsi dagaal ula xeedxeedneed ilaa iyo intaasoo marna wuu sharfay ilaahay ha sharfay gurigiisaan ku qaraacay markaan ku qaraacana ii soo degna waxaan ku dhahay ma garanay raal ahaadaya qoorta muruqa ii galay
waxaan ku dhahay markuu ii soo degay maasha allah khayr allah siiyo aan waxaan ku dhahay waryaa kaamarooyin baa duubtaan dhexnaha igu duubin hal saaco qoslay waryaa maasha allah aqoon kuma lahayn maasha allah gabdhaha waalahay isgaranayaan iyo faamilka aad isku garanayaan aniga magaalada almost 3 sano degan والله فردوس بحو نقو حرب عبد الحكيم بحو ضدك كحر waryaa waxay igu duubin uu qosla maxaa rabtaa waxaan dhahay arrintan inaan dhamaysidaan rabaa kabacdina hooyaa la soo hadasho oo videoga faadumuu dhegeysto oo maasha allah uwax cabdiraxmaan oo carabaha joogtana waa tii video iska soo duubtay dee maasha allah dee maanta firdowsa laafaan soo galayaa waxaan rabaa inaan inta ka sheegay facebook xataa fanaanka lama ahayn caawi isoo wacay waa accept gareeyay laafka waxaan all way ku accept gareyn karo waxa waa adoo maamada raali ani wali ma accept gareey wallahi waxa bari baa rabaa inaan dad badan daadiyo because wuu buuxaa baa falowgina dadka lama flow gareyn karaa inuu somehow wallahi maana wali maan fareen xataa anaku lama ahayn sidaadoo kale waarun lama ahayn cabdixakiim fareen haddii la weydiiyo kuu sheega caawo fiidka hore markuu laaf soo galay around 6 pm and 7 o'clock looga accept gareeyay arrintuu ka hadlana aad u jeclaystay qof haddii xil qaadana nin xil qaadana waa nin ceeb qaaday xil wuxuu qaaday iska daa maama mulyin oo dumar daba xataa afkiis inayna soo mareen waana maasha allah weeyaan because in la isku dhedhego way fiican way xun tahay dumar dhexdeeda daa isku dhedhegna waa isku dumar waa xaalado dumar laakiin ninka ragga waxaa fiican inuu isaga dhoorsanaado dumar wax kasta sheegtaba uu maasha allah iska forgiveness uu sameeyo because ilaahay waa boqolla ka dhigay annagana kontonaan naga dhigay ta labaadna waxaan rabay inaan arrin yar halkan aan ka dhaho ummadda nebi maxamed anigu qofna carabkayga kuma dhufanayo oo videoyada maama milyuun marna eeda milyuun marna abaaye milyuun jarjarayo ma fahanteen waxa laga qurux badan yahay xaaladii way kala degtay qof allaala qofkii video jarjarow ilaahay rasuulkiisan kugu dhaarshay iska dilid gareey arrimaha sii wadina marka isagana wax allaal wuxuu qoritaan uu ka qoray ama video ee leedahay ama meel uu geliyay balan buu ka qaaday caawi inuu wada dilid gareenayo marka maasha allah arrin waa guul noo soo hooyatay ta labaadna community Minnesota rabaa inaan kala hadlo even though aan maanta community-giina kamid ahay oo magaaladan aan idinla soo degay oo 3 sano aan deganahay community Minnesota waan dareecaynaya Soomaaliga waa eedeynaya let's put it that way waxaan ku eedeynayaa maxaa la dhihi jiray yaalka xaafadda ugu Soomaaliga ugu Maraykanka ku dhalatay kuma dhalin anaga tahay isna dhaxtaagnaa rato sano jira alxamdulillah laakiin Soomaaliga inaa caadi waxa community ku eedeynaya horta boqolkiiba community sindeega ayaa idinka gobsan waxay idinkaga gobsantahay sindeego dabaaqa inta ka yeeray aad uga wada xumaadeen allah ka dhigay hooyada iyo xanuunsa community-ga reer Minnesota waxaad dadaysin ma garanayo iyo waxaa xeerinaysin waxyaalaha qaarkood oo foolxumada ama hadallo xun markuu soo laabto waa inaad ka dhawaajisiin aad ka hadashiin ma fahanteen marka anigu personal qof uma galaa laakiin community-ga reer Minnesota ilaahay rasuulkiisa ugu dhaarshay arrimaha qaarkood waa inaad ka dhiijisiin ma ahaano marti maanta inay yahay marti un baa 2 sano 3 sano qof magaalada la joogto marti baa inay yahay ina waxyaalaha qaarkood aniga aan soo farageliyo waa laga qurux badan yahay wali dumar ah raggaan meeshan ka eedeynaya kuwa qoslaya waliba walaala iyo waliba gabadha miskiinta hadeer qardha ka timi walaalay adaa wasan diyaga ka yimi anu hadeer aan qardha ka imi walaalay marka wax waa maasha allah waa reer Minnesota khayr allah sii فردوس يكون عوالله وأقول دار هيا سيد قف سنة والله والله سيد حبيب مستحيل حبيبته ما عرفته ما بقى واحد سيدا كوميونتي يا جود كاجد يقولون والله شحبان باكي بدل المجال أنسك عيار ويا ما يهدا أذان ما والله دت كان كوميونتي مقعيال كأ والله دت كان مقعيال كأ دتك wax laga bedeli doono weegiin dadkii waxa xalin lahaa waa iyaga dadka masaajid waa dadkii waxa xalin lahaa aan firdawso ilaahay aayad quraana wuxuu ku dhahay ilaahay aayad quraana wuxuu ku dhahay walitakum minkum ummatan yad'uuna ila alkhayr ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar ha idin kamid ahaato ummadda nabi maxamed dadka khayrka ugu yeero xumaantana ka reeba rasuulku wuxuu dhahay sallallahu alayhi wasallam kama suulayso ummadayda daa'ifatan oo xaq u gargaarta walaalay Minnesota culimadii baa jooga waxa la leeyahay maxaa masaajidda looga sheeganaya maxay milyuun masaajidda uga cabanaysaa baa la leeyahay maxay culimada walaalay maanta Minnesota meeqa masaajid baa ku taalo wali ma jiro masaajid intuu u imaaday gabadhaas arinteeda xataa balka gabadhii qofka ma og tahay qofka abaayo qofka hadaa fogaysid wuu kaa tagayaa qofka hadaa fogaysid wuu kaa tagayaa hadda ka hor baa firdawso waxaa dhacday
aad anigoo u yar oo kambale degan ayaa waxaan darisahayn gabdho yaryar oo dhalinyaro ah. gabdhaha dhalinyarada waxaan ka soo wadaa wadaadadu markii wadaadada abbaay xijaabada waaweyn iyo diinta oo ku dhegan oo asliga ugu dhegan abbaay dadka iyagaa diinta marmarka qaybtood ka fogeeyo oo way adag yihiin. may fahanta warkayga micnaha adaygooda ay iyaga adag yihiin u malayaan qof walba inuu naarta galaayo ayaa dadkii diinta kasii fogeynaysa. ma fahmino waxaa dhacday magaalada kambala la dhahaan deganaa waxaan daris ahayn gabdho dhalinyaro ayay faamil aniga marka waa yaraa gabar waxaa jirta marka gabdhaha habeenka waxaa la aadaa muusig waa gabdho dhalinyaro oo baashaalaya maasha allah. markaasaa waxaa dhacday gabdhaha gabar ka mida ayaa maalin kasta raadiya iga soo doonato rikoora iga soo doonata ay ku dhegaysato cajilado oo cajilado waxaa la dhegaysanaa wax la garanayn xataa swaaxili iyo ugandhayska iyo. markaasaa gabar ina deganeedaa waxay ugu dhahdaa naayaha sii naagtan dembiyaa kaa soo raacaye aniga shaqaa meesha ka wataa naagta ama fahmayso. cajilada rikoorka markay qaadanayso allaha u naxariistay maxamed axmed boqolsoon ayaan fareen ahayn cajiladihii ugu dambeeyey uu duubay marka uu naga tagaayo la dili doono boqolsoon allah u naxariista qabrigiisa allah u waasiciye. cajiladihii aan haysta wada originaal ah oo noo duubay maxaadarooyinka uu noo sameeyey markaasaan u sii geliya cajilad 2 meelood uu leeyahay cajiladaha laga geliya cajiladihii maxasta taybka ahaa meela cajil u geliya cajila u geliya mid xijaab ka hadlaya u geliya mid cadaabka ka hadlaya u geliya waxba u geliya waana u qosla hadda gabar surwaal dabagaaba qabto timaha halka ay halkaas 2 xabo dheer uga soo taagan tahay ilaahay muxuu qadaray halkiikaada axmed cumar abo macaane ma ugu talagalin idinkoo raali ah inaan qof soo qabano muuqafkan rabno ma rabnaanay baa inaan ka hadalno meeshan insha allah looga duceeyo maama malyuun iyo cabdixakiin iyo hooyadayo xanuunsan oo la yiraahdo maxba sheekh maxamuud sidaa daraadeed baan u jeedaa inay dheedahay walaalay qabo kuma soo qabanaya igan raali ahaa dood ma aha arrintu waxa weeyaan farxad noo soo hooyatay iyo gul noo soo hooyatay rabnaa inaan caawa idinla sheer gareeno inta qof oo xumaata dhigaha ku dhacdo dhinaca dhibaatadii ka yara socotay facebookna inaan dhahno xumaatada wanaag baa caawa isku bedeshay markaa u duceeya maama malyuun una duceeya cabdixakiin una soo duceeya inta ummadda nebi maxamed oo falkan qayrka badan ka gacan ka geysatay in la ibsista hadalkii I'm emotional oo kamid ah baayo faadumo oo kamid ah wax cabdiraxmaan oo kamid ah anigoo firdowsa saciid kookoola oo ii qaan firdowsa jim life oo kamid ah dad badan ummadda nebi maxamed oo magacyadooda meeshan ku soo koobi karin marka videogiisana aboo uu apologize bixinayo uu cafis iyo musaamax weydiisanayo ummadda nebi maxamed iyo maama malyuun waxay ku jirtaa facebookeyga timeline-ka soo saaray sidaa daraadeed baan idiin soo qaban karin dadka ilaahay walaal firdowsna soo qabo marka cafi musaamax iga raali ahaada timeline-ka igana way ku jirtaa qof walba oo soo arag hadalkiisa wanaagsan caawa u fulinayo badanaana dad ma soo qabto miyihi qof facebook dood iyo inuu dad soo qabto usoo gasho oo waqtigeygaaba igu yar ma fahanteen so I'm just gonna waxaan address garanayaa muuqafka meesha usoo galay from there I'm done indheyga waa gudunya saa 6 morning u kacay weeyaan marka arrintan arina happiness-ka aan caawa filgariyaan rabi inaan idinla sheer gareeyo sidaa daraadeed baan apologize u bixinaa ma behalf inaan idin soo qabanaynin iga raalaada faadma kusii soco walaalo are you crying sister dhan wax la tirtirooysaayo I think you crying mise farxadda waay weligay waxaan ooyey 3 jeer aan umaynaya my entire life masha Allah marka walaalay farxadda waa lala ooyaa of course farxadda waa lala ooyaa caawo iyo maray dhimatay gabar horta best friend-keygana lagu soo duceeyay oo dhimatay 2009 oo ku dhimatay Arizona BMW aniga aan lahaayay wadatay habeenka waxay tilmaamaha u soo adeeganaya naan waxay iga tagtay around 9:30 ilaa haduu ku rooyay 11 o'clock 12 midnight waxay ugu soo qaraacay booliiska marka gabadhaasna she affected me she was a good friend of mine since then I never had a best friend gabadhaas gaarigeyga ku crash gareysay ay ku dhimatay Saciida aadan yaa dhaha iyadana faataxada la igu soo maray she was my best friend kasoo cabay macaan ilaahay waxa uga barina qabrigeeda ilaahay waxa uga barina qabrigeeda rawdata mariyaad aljanna ilaahay uga dhigo adduunka saa saaxiib ugu ahaydan aakhirana janna saaxiib ku noqda insha Allah u duceeyo qofka markaa u duceysata adigana malaa'igta ku duceynaysa Soomaaliyeey xaasidnimada dhuuxiyo lafaha idinka gash qofka jiran markaa u duceysad adigana ilaahay intaa in leeg baa malaa'igta kuugu duceynaysa qofka dhintay markaa u duceysad intaa in leeg baa malaa'igta kuugu duceynaysa qofta xanuunsan markaa soo booqatay inta aad sii socotid malaa'igta ilaahay iyo raxmadiisa ku hareynaysa
laba qof markaa dhexdhexaadinaysid inta aa usii socotid ama inta aa la hadlaysid ama inta juhdi ku bixinaysid intaaba ilaahay ajar buu kuu qorayaa yalla yaa soomaaliye marka calaa kulli xaal fardoosoy abaaye sheekadii gabadhan wax yar dhammaynayaa gabadhii waxaan dhahaa cajilkii aan u geliyaa way dhegaysataa markay heesahaadii waxay rabta dhegaysata way dhegaysataa maalintii dambe gabadhi way naga guurta kenya nairobi aaday aniga gabadhii aa wadaad noqonaysa meesha maba soo dhigan xijaab xiran doonto oo diinti fahmi doonta maalin maalmaha ka mid a aniga oo nairobi guri ka mid ah gabar soo booqanaya ayaa waxaa arkay maamada hooyadeeda meel fadhisa markii soomaaliya qabiilka aad u xumaa waaye marka maamada xoogaa xaq qabiilaa ku jiray laakiin daris fiican aan ahayn adiga maamadii aa la hadlay waxay ugu tiri yaa waaye eeda markaasaan ku dhahay eeda xafso waaye aawey waxaan dhahay aamino markaasay ugu tiri eeda masaajidka sigiskay jirta farxaddaan farxay ma aamina masaajidka sigiskay jirta haa indhihii ay kala furmaan ku dhaha markii cara masaajidka ugu tag waxa u tegay gabadhii xijaab koriyo hoose wadato galoofisay qaadan jirta waxaana la dhihi jira markii dambe mataanaha aniga marka qur-aankii waa ugu horreeyey moogtahay ilaan qur-aanka marka waaba dhameeyey waxaan ku dhahay casharada isla qaadan jirna habeenkii 2 masaajidka sigiska imaan jirna umalka qaadan jirna ayadoo xamar waxay iiga noqotay markii dambe indhaha u shareerayiin galoofis qabto markaas waxaa lagu dhihi jirnaa maxaa isku tihiin labadiin markaasi tiraa walaashii aan jeclahay qabiilka dadka qabiilaa ka waasho moogta inaan isku qabiilnahay u qabaan dadka waxay leeyihin isku qabiil maa tihiin markaasay dhahda gabadha cadaabka ilaahay igaga soo hanuuniyey rasuulka marka wuxuu dhahay sallallahu calayhi wasalam culimadaan leeyahay iyo dadka caqliga u saaxiibka ah fardowsooy rasuulku wuxuu dhahay sallallahu calayhi wasalam وإن يهدك الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم هدو إلهي هل قف درتها كسوها نونية هل قف هدو إلهي درتها كسوها نونية قال أم مسلم قلدنا جيرة مرأي انتهت لحظة إلهي تحقي كسوها نونية وحي كاغا خير بدنتها خير من لك من حمر النعم عادة تنقود قدودا مركا وحان لا علماء من السورة سيدي ولا عشي وشاكتي وحيت المجتمع من السورة علماء عامو dadka Minnesota joogo sidaan aad tihiin aan wax ka bedelno waa ceebaysanahay ceebta ilaahay ha asturo waa ceebaysanahay waxay Soomaalidu leedahay xil dhalaan garta weyna xilka ay dadkii Mareykan ku koray oo iyagoo ilmo yaryar oo gacanta la hayo la keenay ay ka gubteen maamadii sariirta saarneed oo tacbaanka ayadoo xanuunsanayd ay ka gubatay dadka guryahooda jooga masaajidda wadaadada jooga wallahi fidmad markay saasoo kala tahay qofkiisa kaliya kuma dhacaysa inaga dhan ay nagu wada dhacaysaa waan kuu soo celiyey Fardowsa Abaa Sharafe ما شاء الله waxaan jeclahay marka aayadaha quraanka gishid bas ana quraanka saas uma garanay ma sha Allah waan ku qawowaa jazakallah Allah quraanka waa baranay aniga hadda maanta aayadihii quraankan qalqaldaay maanta aniga isla yaabo wallahi billahi because I was emotion about it's so difficult wallahi dadkaagi walaaliyaalo waxaan rabnaa message-ka hadduu meel gaaro Fardoos waxaan ku sii darsanayaa taas arrintan meelo badan wajiyo badan ay yeelatay leebalo badan ay noqotay Snapchat-ka Fardoos waa arag soo maaha waxaan leeyahay ani waxaan leeyahay caaw guul alxamdulillah Fardoos ilaahay khayr siiyo guul iyo gobonimo caaw joognaa hooyo ilaahay caafimaad ha siiyo ehelka dad badan baa ka shaqeeyay ubaxa ka shaqeysay waxa ku jirta gabadha Ingiriiska joogtay wariyaha Aisha Kaltuun dad badan arrintan Cabdixakiin arrintan dad badan ka shaqeeyay inay arrintan Cabdixakiin uu naga ballan qaado marka waxaan leeyahay ay loobin boqolaha meesha ka maqnaa dumarka u badnaa marka waa inaan dhahno dumarka guuli gowmino because xilkay dumarka fahmeen waxay garteen nin raga du garan waay waa laga qurux badan taas waxaan u maleynayaa adduunka doomka soo dhawaanayo because berigay dhaqankii aniga iskooleysan ku soo aqliyeystaan ma lagu koriyay markii wax dib dhaco ama qabiil isqabsado ama qaraabo isqabsado ama qoys ahaan isqabsado raga dhaxgali jiro gogosh fadhiisan jiray marka hadda sim like dumarka inuu gogosheena anaga aan fadhiisano marka ragga Soomaaliyeed somehow Fardoos abaayo ragga Fardowsooy xabsaya milyan hala dhaho xabsaya iyo Fardoos hala dhaho 10 milyan ardaydii waa ardaydii graduate fiiri abaayo hadda ka hor baa markaan aan shaqaynayo 4 sano ka hor baa waxa arka cusbitaal aan tagaa maama ilma jiideyso
waxaan tagaa abbaa dugsi maama ilma jiidayso adeegaan tagaa maama ilma jiidayso maama disable waxaan arkay hooyo cunug disable ah oo autism haysata he is 14 years old oo very tall ah oo dhagihiina la indhihiina la ma fahatay Firdowsi ninkii dhalay uu ka tegay cunuga yarkaa ma taagnaan karo hooyadiis suu dhulka ugu dhijinayo way gaabata hooyo macaana ila hooyaha ku cadaabin wallahi inaan garabka inuu haysto maahan keligii ma taagnaan karo indhahana wuu la'yahay dhagahana wuu la'yahay waa autism hooyo quruxda cunuga isu u labisaya waa yaabaysaa ilaahay ka daa'ima leh waxaa micnaha ka soo wadaa meel kasta oon tago hooyo ilmo dhaadhacaysun baa arkay cusbitaal tag maxkamad tag meel iskuul tag meel walba tag marka aniga maalintaasa waxaan ay raggeeni diidaya waa u dudahaya hadda barnaamijka caawa kuma soo celin karaa maalin kale intaa aan u rikaabinaynaa hawsha anaa kaa codsadaa baa barnaamijkaas inaa kusoo celisada caawa jeclay please dadku waa badina codkiyaa waxadeed Firdowsi waxaan aniga la sheekaystaa calankaan la sheekaystaa moogta reerkooda iyo carruurtooda iyo dhaqdaana laga yaabaa marka Firdowsi aniga markaan sidaan waddankan u imi calanka buluuga aan la sheekaystaa moogtahay waxa ula sheekaystaa sidii qof caadiya moogtahay sidii qof caadiya calanka ula sheekaystaa marka waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a calankaan la sheekaysto waxaa eri buluug le calankeeniyo baylahay yiri buluug le calankeeniyo baylahay yiri cawaale calankeeniyo cilqabaa yiri cawaale calankeeniyo cilqabaa yiri raggiinii diidayo waa ka dudahayaa raggiinii diidayo waa u dudahayaa dadaal ma galaane derbiga istaagayaan starbox gabdhaha darayaysan diirkooda kama naxan gabdhaha darayaysan diirkooda kama naxan gabdhaha diihaalka qaba oo daryeelkahayn jirku dikaamaaya diirkooda uma naxan gabdhaha darayaysan oo aan daryeelkahayn jirku dikaamaaya diirkooda uma naxan ubadka derbiyada ku xiran oon daryeelkahayn waa ilmaha xabsiyada ku jira ubadka derbiyada ku xiran oon daryeelkahayn ubadka derbiyada ku xiran oon daryeelkahayn kole adigu iyagana jirkooda uma damqadaa eri waxaa eri marka dumarku waa dadaala calankii baa igu leh dumarku waa dadaalayaa handulka aad tihiin dumarku waa dadaalayaa handulka aad tihiin ubadkiibay daba socdaahaan oo isa daaliyahayn ubadkiibay daba socdaahaan oo isa daaliyahayn oo diintiibay barahayaahaan doorna waa galeen oo diintiibay barahayaahaan doorna waa galeen ee daa'imo weebaadaan ku duraansaday oo deeqsiyo weebaadaan diiday lagugu oran dulliga naga saara boohowo dalaala keen dalkii noo ceelii raboohowo dalaala keen hayga oohin Firdowsi oohin horaa usoo dhammaysta anige hayga oohin cawada oohin wallah horaa usoo dhammaysta abbaay marka raggeena oo meesha iska qaada waa idin jecelna wax noo kiin bedelaya ma haysane yaa mid joogiyo mid maqanbo gabadha 14 ilmaha la haysta waxa gabdhaheeni maanta madaxa ka wada waalay gabar yar oo ilmo looga tagay oo kaligeed ilmo la balanbalayso oo kaligeed ilmo afka si kastoo strong u tahay ilmaha amayadaa kaligeed iska dhashay gabadha Firdowsi gabadha laba qof ilmo iska dhala hal qof ilmo ma dhala kaligiis gabadha intay cusbitaal tagtay ilmahaas kuma soo abuurin wiilaa ka dhala wiilkii ka dhala gabdhaha sida loo dhaamo teeda kale Firdowsi
hadda habeen hore ubax way dacwoonaysay aniga ubax way iga qaban weysay inaan waxaan rabay leefkeeda aan ka hadlo ubax cabdiraxmaan war gabdhaha cayda ka daaye war alla hadii ku gabdha yaaba yaaba way ku jirtaa wayna daawanaysaa ubax waa u jeedaa way ku jirtaa war gabdhaha cayda ka daaye war bal gabadha quruxdaa leh oo ilaahay quruxdaas siiyey oo beydkii ilaahay joogto oo sharafta leh oo qiimaha leh oo intaa muslimiinta u gargaari jirtay war soomaaliya yaa idinka nabadgelaya wartii idin caataynaysa idinkama nabadgelayso oo baruurtii iyo cudurka idinka saaraysa waa taas halkaas ay fadhisaa oo gabadhii muslimka ka dhimanaya aasaysay oo sadaqa u aruurinaysa idinkama nabadgelayso oo tii idin guubaaminaysa oo marna idin caynaysa marna idin shidaysa idinkama nabadgelayso xabse iyo milyuun iyo gurubada markay ku kacdana idinku galgasho war ilaahay ka baqa war dadka dad xume dad laawe wallaahi ubax beenu xalay 10 mar aan dhow ubaxa iga qabo inaan ku tufaarbe dadka dhan weli waa igu kacsanayd inaan sida raggeeda ugu tufaarbe oo dhaafa gabadha wajigeenu ha gubtee wajigeena sanade waxaa la yiri ubaxa maxaa wajigaaga u tusuweysa markaasay caydiya wadnihii cadkasiid wallaahi waa ka nax caydiya wadnihii cad kaliya laab waxay tiri anigana kolestarool aan qabaa haddii aan xanaaqo waxaan ka baqaa madaxa inuu i xanuuno abaa qofka bini aadan waa moogta waxaad tirsaa ii caynaysa qaadan lahaa caydin maxaa gabdhaha u caysiin war gabdhahan beautifulka milyuun baa dhihi jirtay beautiful markay dhahdaan jeclay gabar beautiful ah war bal ma fardowso sicid maamadii aan ka bartay berigii koola moogta fardowso sicid koola miyaa caylo waa gabadha qurayshta osanku saa u saaran yahay war ma ubax baa cayle war malyuun baa cayle war gabdhahan waa gobgobe dhashee haddaana dayn weydaan reeraha ee soomaaliyey haddaana dayn weydaan waxaan dhahaynaa quruxdayaanu leenahay qalabkayaanu sidanaa haddayda wax nala qas marra kale qaarad kala jiraa qaadirkeena oo qoranta maxaa samaynaa walaale gabdhihii gabar yari baxsan mayso mid weyne baxsan mayso wadaad baxsan mayso adoo aayad quraan ugu sheegaya lagugu tabahay mid ciyaalka xaafadda xabsoo kale ma baxsanayso soomaali waa ka tashanaa laakiin ma ajnabi hadaa ajnabi jeclaa laa soomaaliya mar waan ka dhex bixi laa laakiin ilaahay amarkiisa ajnabi ma jecli maya may ajnabi ilaahay nagama kaasiyo gabdhaha fiican ajnabi intay qabaana allah u barakeeyo ilaahay maarta khayrkooda ha siiyo laakiin ma ajnabi baa bisinkiya yaasiinka fardowso ajnabi uma quurna hadda ka hor baa fardowso islaan gabar dhashay marka islaantii gabadhii bay u buraanburta moogta sureer loo diidiye soomaalidii dhammayd soomaalida qabiil aysan sheegin male qabiil kasta waxbay ku sheegtay gabadhii soomaali dhan ay u diiday marka hadda waxaan ka baqaynaa inaan dhanna fardowso loo diidiye soomaalidii dhammayd hadda nagadaa marka walaalay insha allah adiga mid saalix hooyaa markasta kuu soo duceysa waxay dhahdaa fardowso iiga waran waxaan dhaha hooyo fardowso jihaaday ku jirtaa jihaad annaga hal xabaaba maraykan waxaan dhahay aan la yaabanahay 3 bay jiidaysaa maasha allah almuhim akhyaaray naga raalli ahaada sidii aniga kuligeen inaan nahaa isaga sheekaysanoonaa farxaddii caaw naga badatay wallaahi ilaah baan ku dharta hurdadii xataa waa iga haade marka guys cayda gabdhaha ka daaya hooyooyinka cayda ka daaya dirgaxna waa tumanaynaa haddaan rabno dirgaxna haddaan rabno waa tumanaynaa who cares maxaa kaa galaaday mid halkaan kulaha dirgax tunta war dirgaxaaba ugu jecelnahaba niyo aniga hadda fardowsaha dhaantaday baraysa yaantaan yadaa ku waryaahe xijaabkeeda way xiranaysaa ku mashquuli waryaha fardowsa sig midalkaana baalasha midalkaana milyuuna iska dhigaa midalkaana baalasha ka rifayso waryaha ha ku mashquulin xijaabkeeda beautiful fardowsa weeye ha ku mashquulin aday kaa qalbi fiican tahay ha ku mashquulin waryaha haba arrinba commentska dibba hadala adi tiraahdaa mar labaad qodobo yara dib ugu laabanayo ragga dumarka caayo aniga ahaan haddaan fiiriyo maskaxdeeda yar aqliga xun oo igu jira inaan dadka ma aqli badna haddaan wakiisho ama aan fiiriyo waxaan u arkaa nin rag ah hadduu qof dumar ah caayo ama comment ku caayo ama xagga waxa ku soo qoro waa laciif qofka laciifka ayaa caatama qofka hadduu ما شاء الله دمسترين إلهي مسكحليس دمستري
dumar ma caayo wuxuu u arkaa marna walaashiis marna hooyadiis oo kale ragga anigu caatama lama caatamo maxaan ugu yaha garee Facebook ma naga hagaree qaarkood waan blogger laakiin maya baay macaan blogno hadda ma bloggereeyo waxaan isku dayaa ina iyaga wax ka bedelo because the more ay daawadaan ama more ay arkaan waxa laga yaabaa intaas inuu ilaahay codkaaga wuu iga googooyahay codkaaga wuu iga googooyaa baay war ha igu shidan halka waa lay arkayahay qaylada jooji soona seexo hadalka badan jooji waryaa ha igu shidan halka nalka ha igu shidan ragga caatamayo ninka fardoosa abbaay raalo fardoosa ku googooyay ma hagaagaado warna ka tag walaal aaga weeyaan isgo hadalkan aan soo abxirayo meeshan waan ka sii baxay because waqti badan aan ku jirnay ma fahmin Allah ay waa lay arka anigoo xijaab loo soo jeedo halka iga okay ana aqyaartu waxaan rabaa arin yar inaan dhawrto aniga fardoosa ma sha Allah qof dhimanaas dhameystir waxa qof dadkeeda iyo Soomaalida iyo qaramina deeqdaa dadkeeda jecel waxaan ahay baan iyo aleeyga waxaan ahay maalintii yom qeym ilaahay oo loo hortagaya rag waxa hadda nagu soo batay rag oo dhan ma wadaha dumarka caayo for example on Facebook aad liiga macay Snapchat ka over waan soo saaray 2 million and something for agreeso dumar ugu badan yihiin ragna ay ku jiraan rag like 24% weeyaan qofaas oo qoraayo abay thank you so much call me be warm fante it's okay and the point I'm trying to say it's qof waxaanaya hadaa aragtiin especially ragga hadda la hadlaya because qof dumar haday caatinto waa iska dumar oo dumar ahaanta u fiiran waxaan dhahaa it doesn't matter aqligeeda yar oo laciifka inta siiyay ma fahantay laakiin ninka ragga am expecting him more inuu xushmad iyo respect u lahaado because waa nin rag ah ninka rag oo caatimo anigu lama caatimo waxaan isku dayaa page ku igu caay ama Snapchat hadduu caay ka soo qoro ama friend ka soo faro ama whatever it is blog baan u diraa because ignore ignorance that's the philosophy misina qofka markuu ignore yahay I try my best ina ignore gareeyo because ma u baahno qof negative ii keeno nolosheeda because already ana enough life kayga haysto bontigan ka hadlay waxa weeyaan ama saan aan u libisto ama jalaabib aan isku rido after end of the day anigi allahayga ayaa isfiirsanayna waxaan sameeyay ilaahay ba ii qorayo malaa'iga garbeyga saaran marka waxaan ragga ka waanin lahaa ninka ragga ma caatimo gabadha hadaa wax rabtina ku tiraado ama waanaha haato ama fariina faraysid private message ka ugu soo dir that's why Facebook message ugu jira walaala arrintaana falxun saan iska daa ceeb ma aha laakiin in caatimiye ragga wax lama goosan karo marka ninkaas oo kale waxaan dhihi lahaa ragga ayuu falxumo iyo magac xun u soo jiidayaa marka ragga caatimiyo aadaan kaga sheegtay maribna arrinta inaan ka hadlo dumarka caayda ka daayay gabdhaha caayda ka daayay ninka caatimiye nin uma arka waa laciif if I was him anigu maba caatimiye nin ragga daahay laakiin hadduu inuu caatimo u gartay ragga caatimo ama ragga fiidoo jaro dee googoradaha dumarka baan usoo gadaya anaa donation ahaan u siinaya because I look at him as a less of man حتى دمر واي ما دهي كرو waxa weeyaan dumarka karon waa dumarka liita weeyaan ninka raga ma caatimo waxaana jiro wax la yiraahdo Soomaalida ee misunderstood ee u haystaan nolosha markuu qof meesha soo fadhiisto ama uu hadlayo you can debate the person waa hadalada waa iswaafajin kartiin opinionkaaga laakiin necessary ma comment ayna soo qortid does not give you attention kuma siinay qofka attentionkiisa kuma helaysid that will make you less of person qofku wuu ku nacaya ana qofka caatimo been kuma sheegaysin niyad inta u naco aan faraha ka qaada because waa ignore gareeya because qofka haduu isaga ignore yahay wuxuu ku qurux badan yahay ina ignore gareysid okay so many things na dad baa idhaho why are you always into Somali hadda idin sheegaya qof kastaba saan hore inuu sheegay wuxuu ka soo jeedaa gobol ayuu ku dhashay ama ka soo jeedaa after end of the day waxaana mideeyo oo walaaliyo waa diinta iyo calankaas buluug oo quruxda badan qofka igu jeclaamay uu nacab falaas waxaan aaminsanahay maanta ayaan ku dhimanaya calankaas buluugan ku dhimanaya calankaas baa ila qabiila ila ehele because waxaan ogahay inta haliyay ama Soomaali wanaagsan u duugan ayaan ogahay ma fahanteen meelan ka hadlayo marka waxa weeyaan qabiyaaladan xun oo niyada naga degtan inta la iska daayo Soomaali ahaan wax kasta laga fiiriyo haddana hadal oo dhan afkan ka soo xiraya maama milyuun ma sha Allah iyo Cabdi Xakiin arintan aan muddo ka soo shaqeynayna aniga iyo abaay iyo hooyaday oo macaan oo xanuunsan oo la yiraahdo Maxamed Sheekh Maxamuud oo ku nool state of California city of San Diego ina duco igu soo duceysin ayaan rabaa iyadoo xanuunsan ba inta tabarteeda shaqadan ee nala gashay dad badan way galeen oo wax Cabdiraxmaan kamid ah ma fahanti waa inta aniga xaqiiqo maanta aan u ogahay marka walaalkay wuxuu naga balan qaaday idinka Ilaahay inaan eed macaan milyuun marna walaasheen tahay marna gabar Soomaaliyeed mar dambe afkeeda hadii Ilaahay idin roon yahay
Oh no. I'm back. Rally هذا email gmail كيا email كسر عمر ربينا slide قرايو email كيان قال wuxuu naga barmas gareeyay qofka bid'a horta aniga saqshin nafsida oo hadli kara daan wax intaan dulmi qof ku sameeyo ama qof raali gali aan dhaho lagama yaabo qofka si kasto hadda dhibaato kas ugu soo sameey dib dambe inaan qofkaas uga hadlo because qofka raali gali hadda tirada laga hadlo ma fiicna meesha looga tagaa nafsideedu baa mas'uul ka qaadi kara laakiin waxaan isku dayaa inta karaamadeeda aniga ahaan inuu aboowe cabdixakiin mar dambe maama milyuun u soo jawaabeen hadal xun uu ku dheeyin because waa qof weyn uu ii dhaartay ma fahanti qofka hadduu ku dhaarto kutub gacanta kuu saarana waa la aaminaa dib dambe maamo magaceeda uma soo qaadayo dadkii ka faa'iidaystay ama fiirooyaha jarjaray ama xumaata tashiilka ahaayo intaas xumaatada dhigahooda ku dhacaayay maamada iyo aboowe inay isdagaalaan raalli ka ahaan ilaahay idinka cafiyo sheekadana meeshaas ku damiye ma fahanteen soo hadda ka bacdi facebooka wixii wanaag uun ha looga hadlo sheekada maama milyuun iyo cabdixakiin meeshaasay ku xidhantay caaway tahay waad habeen jimco soo galayso ee taamka uu yahay taamka la igu fogay saacadan bateriga ka dhimatana ha u bixin laakiin inaba caad ma Swiss waaye Swiss uu taamka uu yahay close milna u meenaya sheeka dambe maama milyuun iyo cabdixakiin dambe ma soo noqonays ilaahay haduu yiraahdo hooyadeena caafimaad sareecan inuu ilaahay ii siiyo hooyada ifka ugu jeclaa gabarna waa ugu weynaa she's my best friend inuu ilaahay caafimaad ii siiyo hooyada u soo duceeya intaasaan hadal uga baxayaa ragga Soomaaliyeed wax niikin bedelaya ma jiro because waa idin jecelnahay ma fahanti malaka hadlooyo aniga ahaan nin Soomaaliyeed maanta macaan karo 6 wiil baa la dhalatay plus my father 7 plus kan dhalay 8 wiil baa aan ka soo jeedaa sidaa daraadeed idin jecelnahay in ma adeero ilaahay nagu dharshay hadaartina caayay laakiin little bit ma fududayno lacif noocaay xooga noocaan in yar markay lacaanaysiin ma aragtay ha ku talax teginano in yar isku lahaara marka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليلة إيتهاي work يشقي عرورة يسوي سبري مركا فاتحة على سكوسو آخرية شاكي ماشي على سكو حرنتين سلوت السلام عليكم